wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daahsoon waana 6 bishii Maarch 2019 wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku heshiiyay inay dib u hagaajiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed siina xoojiyaan iskaashiga dhexdooda ah kadib wadahadallo midho dhala oo ay magaalada Nairobi ku yeesheen labada hogaamiye ee labadaas wadan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Hogaamiyaasha Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya oo kulan saddex geesood ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay si qoto dheer uga wada hadleen waxyaabaha khilaafka ka dhexdheliyay Soomaaliya iyo Kenya iyagoo ku heshiiyay inay ka wada shaqeeyaan nabadda lana qaado tallaabooyin wax lagaga qabanayo arrimaha sii kordhin kara khilaafka labadaas wadan. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo haatan haya guddoomiyenimada wareegta ee dalalka urur goboleedka IGAD ayaa toddobaadkan waxa uu waday wadahadallo saddex geesood ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Asmara, Juba iyo Nairobi iyo kulamo kale oo ka dhacay magaalada Addis Ababa kuwaasoo guud ahaantood diiradda lagu saaray xalinta khilaafaadka gobolka iyo iskaashiga dalalka geeska. halka sidoo kalena wejigii hore ee wadahadallada Kenya iyo Soomaaliya ka dhigay kuwo uu gooni u arko madaxdooda si uu hoos ugu dhigo halka khilaafku halka uu taagan yahay isla markaana uu abuuro weji wadahadal oo ah ka maanta qabsoomay. bishii February bartamaheedii ayay ahayd markii uu khilaafku ka dhex qarxay dalalka Kenya iyo Soomaaliya. khilaafka oo xuduntiisu ahayd sheegashada xeebaha shidaalku ka buuxo oo ku dhow xuduudaha ay leeyihiin labadaasi dal. waana khilaafka cirkays ku shareeray ee horena ay arrintiisu u taalay maxkamadda xalinta khilaafaadka ee caalamiga ee ICJ. waana khilaafkii gobolkaasi saameynta ku yeeshay isla markaana hakadgeliyay isu socodkii dadweyne iyo baayac mushtarkii ka dhexeeyay labadaasi wadan.